السلام عليكم صاحب يال سودا وهذا ما أنت يا مقال عصب ما أنت مقال كنا ما حكوا يقولنا أرين بيشن جدا أنا الله هاي حق الصومالية أرين تصاع في لوتري مريكا مركا أرين تن واحد يقول يقولنا في لوتري مريكا محوي هي حرس الله حرستا هؤلاء صدام بدو يقولنا إن شاء الله مركا برنامج واحد مرتيا صاحب كماهر أو أرين تا فرقريتشرا ساعة سودو برنامج وكسو دوينيا هذا ما سنت أنس وكله برنامج كه أوكي هي أوكي سؤال شوية كودينا يا حوي دي في لوتري وما هي هي تطبيق بفاسنين أوكي دي في لوتري أفصل عنها وحاوي سنة والب أو بختان نسيب أو لوه الفيزا دالك مريكن كه أفصل عنها سألوقها كه وفيزا لوه له دالك مريكن أو بختان نسيبه ولكن فيزاس مركز قادر نسني وح أو فري ما جت لكن والعق وصح وسؤال كلام كودينا يا حوي حل مفرمة دي في لوتري بركة سحل مفرمة runtii sanadkii maruu furmaa wuxuuna furmaa bisha October ilaa November hal bil u socda tusaalahaan oo kale bishan wuxuu furmay 6 October wuxuuna xirmaa 9 November okay haye wama xash shuruudaha lagu baahan yahay qofka apply garanaya qofka doonaya dii lottery-ga Mareykanka xariisto shuruudaha loo baahan yahay horta walaahi shuruudaha ma dhib badno mana fududo tusaalahaan oo kale qofku inuu haystaa wadan oo lashiis sheega karo sida Soomaali inuu sheegto oo inuu haystaa shahaado dugsiga sare ugu yaraan misaadan waxa lagu soo kordhiyay primary qofku inuu haystaa ama hadduu haysan qofka oo bilaa oo waxbarasho u yahay oo inuu haystaa 2 years oo experience oo shaqo صح marka hadduu intaas haysanin maxariis kara baasaboor laan ku xariis kara jawaabtu ma baasaboor laan macquul ma macnaheedu waxa weeye dad baasaboor haysan isku xariisan waa sababta wadanka ma socodso Soomaaliya marka Soomaaliya kale aan Soomaaliya ka soconaa baasaboor number leenahay visa noo saaran marka سيلو تحرع أفقد الله ترايفل دوكمنت سيلو كسفريسا دا باسبور هسن دويدا وهي أدكتا مرمر قارو حاجر تو دادكو حريستي رفيجي ترايفل دوكمنت دادكو حاجر أو صوماليه أو قحوتيه وحنا كو حريستان ترايفل دوكمنت لكن ترايفل دوكمنت وحوليه expire date مثل issue time وقت لبعي اي وقتي ودعا مش كو بيحنيسا فونك صح اوكي سؤال كلا waxa weeyaan في لوتري مريكا يا حرسنا انت حرسان ساوي قفل بو حرسا كرا سنجل مسماريج اديو دادا كوما خرنا لكن waxay ku xiran tahay baasaboor inay haystid hadii tusaalaan oo kale waxa tahay aabo oo 60 sano jir ah 60 sano jira caruurtiisa iyo xaaskiisa uu xaray karaan haduurun si oo kala gooni wax xarisa karaan صح laakiin kuma xirno da qofal buu xarisa karaa hay waayahay ma jiraan waayahay wadamo aan la ogolaan xariistaan amba uu ka buuxsan waxan way jiraan tusaalaha waxa kamid ah dalka Bangladesh Brazil sawahan oo ugu xirmo waxa waaye Mareykanka dal walba oo adduunyadan konto kuna duu gaaro xadka oo ay joogan tusaalahan oo kale Bangladesh konton kun in ka badan ay joogto wadanka Mareykanka marka macquul maahan inay qaataan visa oo baqtiyaan sibi صح هندي نو جتا سوما هندي نو جتا او dadkaas waa dad tiro badan oo 100 iyo intaas milyan dhaafay inta bay hore buuxiyeen iyo wadamo kale waxa jiro Canada oo kale sababtoo Canada waa wadan horumarsan dadkooda macquul ma inay xariistaan صح ka Soomaalidu ilaa intee ku bixin karaan wallahi kuntu Soomaalida ay gaarto barnaamijkaas uu ka xamaad Soolaan oo kale Bangladesh 2017 barnaamijkaas ay bilaaween ilaa 2012 ee ku soo gabagabeeyeen kontakas ku 2012 bixin konton صح okay waayahay marka qof guuleysto waxa lagu ogaanaya qofka aan guuleysan iyo qofka guuleystay waxa lagu ogaan karaa marka xariisnaysa barnaamijka asimadays waxa jiro warqad oo ku dhahayo degso mise screenshot ka qaado sababta screenshot loo qaana waxay tahay waxa yaal confirmation number kaas ku ogaanaysa ina guuleysanin okay confirmation number waa maxay markaa confirmation number waxa waaye tusaalahan oo kale numberkaas aad qaadanaysaa iyo da'daada
sababtoo ah waxaa lahaa marka form waxaa jiro oo lagu ogaado mise page-ka oo dowladda waxaa ugu qoran state.gv macna oo government laga wado marka website-kaas galaysaa waxa lagu leeyahay check state waxa la jiro warqad hoostiisa waxa qoran check state kadib waxa gelinaysaa confirmation number-kaaga iyo da'daada iyo waxa lagu siinaa inaad tahay code yar ina humanta ina robeta allahowina dan markaa geliso confirmation number-kaas waxa ku siinaa in lagu doorto in ay ku soo baxdo mise lagu doorto صح okay qofku markuu guuleysto waxa looga baahan yahay oo guuleystayo qofkii maxaa laga rabaa qofku uu guuleystay result uu helay tusaalahan oo kale result waxay soo bixaysaa 7 May sanadkan 2022 sanadkan oo 2022 waxay soo baxday 8 May marka qofku markuu 8 May uu fiirsado waxa loogu baahan inuu xareeyo form loo yaqaan DS260 tusaalahan oo kale DS260 waqti waxa jiro oo cayiman lagu bixiyo had tusaalahan oo qofka 2021 usoo baxday hadduu gaarsiiyo 2022 September oo formkaas uu buuxin automatically uu ka xirmaa formkaas صح way inta kadib haaxiya waxa yadu uu buuxiyo formka DS260 oo xogta loo baahan yahay kadib Gmail-ka jawaab ugu soo celinayaan waxay ku dhahayaan waxaa noo soo dirtaa dokumentiyada sida baasaboorkaaga dhalashadaada waxbarashadaada booliis clearance-ga ay Gmail-ka ugu soo diraan okay qof marka loo soo jawaabayo oo lagu wadaag guuleysatay xagee lagu soo diray waxan qofku uu guuleystay marka la soo qofku uu guuleystay laba sii oo noqorta guusha koowaad dad wax soo hadalnay oo inuu confirmation number-kiisa ku eegaa oo xogtiisa u geliya then police clearance-gan oo markuu wax document-kiisa u bixiyo waxa loo bilaabinaa appointment waqti oo safaaradda marka inuu guuleysto waxa lagu kara oo markuu visa oo fart laga saar sababtoo waxa ku dhahayaan anaga ma ku ballan qaadi karno inaan visa helay sababtoo visa la bixinayo dad guuleysta badan صح way inta kadib jawaabtu maxay noqon kartaa way wallahi qofku markuu uu visa oo interview oo ku dhex jiro Soomaan tusaalahan dad waxa jiro oo nasiib leh hadan nasiibkooda meel xun dhigay صح Soomaali badan ajaanib badan adiga ku jiraan tusaalahan oo kale qofkan waxa la hayo congratulations visa Mareykan ku heshay waxa laga yaabaa airport laga soo celiyo oo Mareykanka waxa 2017ka Trump markuu haystay sababta Trump wuxuu baan ku soo dhigay wadamo badan sida Soomaaliya Iraq Syria adoo way badnaa sideed wadan ahayn dad Soomaali waxa jira markuu guuleystay interview ka gudbay kadib waxa la Mareykan markay tagaan wadanka iskaga laabo Trump ku adkay markaas Trump ku adkay صح okay حتى الآن Soomaaliya rumaysnayn loo tiriyay DV loo tiriyay jirinba وجرا dad badan oo ku baxay oo had yar aniga waa taqaan Malayna Ahmed صح أحمد وير هذه نصيب بدن runtii waan u hambalyeynaya صح oo soo baxay sanadkii hore isla xareysanay صح nasiib wanaagsan soo baxday aniga ma soo bixin inta kadib markii lagu soo dokumentiga waxa lagu soo diray Gmail oo lagu laaway guuleysatay balan lagu qabanayo ma jirtaa balan way jirtaa wali balantaana uga adag waa balanta interview-ga waa ku booqanays embassy-ga safaaradda حتى قنصليد wadamada waxa loo qaybiyaa safaarad iyo qunsuliyad marka qunsuliyad naftigeedu ka qaadan kartaan interview-ga marka interview marka laga qaadayo markaas waxay ku xiran tahay formka DS260 ay buuxisay su'aalaha ku buuxisay qoys lagu weydiina صح xagee marka uu interview waxa ka dhacaya badan waxa ka dhaca marka interview waxa ka dhaca safaarad laakiin safaaradda waxay ku xiran tahay adiga tusaalahan oo kale qofku markuu joogo oo Soomaali uu guuleysto hadii oo adiga option-ka lagu siinaa ma waxa lagu leeyahay safaarad kugu dhow ku dooranaysa safaarad aad joogto salaam oo kale dad waxa jira Soomaali jooga sanadkan guuleystay hadii automatic Nairobi lagu wareejin option-kaas ay ka faa'iideysan waayeen salaam oo kale Ahmed waxa la siiyay option ma dhaka ku maraysa interview-gaaga mise meel kale aad dooranaysa marka tusaalahan safaaradda oo tusaalahan oo doorta Bangladesh easy ku marka laakiin Soomaalida Muqdisho mise Hargeysa meel kasta ay joogan oo Soomaali ka mid tahay
automatic waxa laga yaabaa mararka qaarkood in Nairobi lagu wareejiyo sababtoo Soomaaliya safaarad kuma taalo oo Mareykanka صح waxa jira dad badan oo reject la soo siiyo ama la soo diiday waxyaabaha reject qof lagu siiyo maxaa kamid ah والله rejecti waxa kamid ah documentigiisa inuu fake noqdo inuu been sheego ina visa loo diiday waxa kamid ah in loo baasaboorkaaga Soomaaliya oo kale Biden diiday oo kale inuu visa la saaro صح waxa kale macquul in visa heli weyso sababta maalinta interview lagu baahan visa way dhamaadeen صح problem badan oo jiraan oo reject qof lagu Soomaaliya oo kale qofku uu caafimaadkiisa eber yahay oo cudurada halista laga helo waxa automatic waxa la visa waa reject صح sanad soo day lagu leeyahay adaa caafimaad qabo okay laba jeer oo isku xigta sanadkan laba jeer oo isku xigta ma xareysan karaa ma qof ma xareysan karaa waa hal qof kaliya hal qof ma xareysan karaa laba jeer maya hal mar xareysan karaa sababtoo ah sabirkaaga iyo magacaaga iyo xogtaadaba computer-ku uu yaqaan sababtoo computer-kan waa la baray in oo hal qof oo salad garay laakiin adigoo laba qofood wuxuu ku siinayaa blog way su'aasha kale waxa weeyaan hadii aan loo tiriyo ka xareeyo markuu soo u furmo amba dhexda amba xagga ugu dambeeyay markuu xirmayo chance uu kaga badan yahay markaa wallahi horta niyo waa hal bil waxaan Soomaaliya kala dad waxa jira haweenka sas loo furay 6 November 6 October la furay صح isla waqtigaas waliba waxa la furay 2 PM صح oo Mareykanka laakiin Bangladesh wuxuu ahayd 10kii oo buur ama dalkii intee dalkii wuxuu ahayd 7 fiidnimo mise halka saac صح Bangladesh wuxuu 10 dada waqtigaas buuxiyay صح والله نسيب waxay ku xiran tahay asna saddaas laakiin badana dadka dhaxda iyo dadka ugu dambeeya aan nasiibkood fiican asleeyahay صح sababtoo Ahmed wuxuu xiri sanadka hore 5 November uu xiriyay wixina xirmays 10 November xirmays marka badana waqti waxa jirto oo la xariisto Soomaaliya oo kale Ahmed markuu guulaysanay intuu ka xiriyay 12 habeenimo bis 5 saac Mareykan already magaas waxa ka galabay ka صح waqti soo faa'iideysta hadaba guud ahaan DV lottery Mareykan waa inta su'aalaha badan kale isku weydiiya dad badan oo Soomaaliya ee su'aalaha noocaas oo kala qaba fadlan hadaa u baahan tahay in lottery aad xareysato linkiga xagga hoose description-ka xagga hoose ayaad kala socon kartaa amba ka apply gareyn kartaa hadii aad u baahan tahay weeyaan oo passport-na sidato laakiin hadda passport haysan meesha isku soo waalin passport-ku waa dhabarta DV lottery ku xareyn karto ha marka aad u baahan tahay fadlan description hoose ka eego barta ka xareyso muuqaalkan haduu ku cajibiyay fadlan like saar fadlan hadaa subscribe noo saar YouTube-ka fadlan imika subscribe noo saar adoo aad maasan guud ahaan waraysigu intaas ku saafin yahay waa inoo muuqaalka xiga insha Allah